24 saacadood wax ku dhow ay dawladda Soomaaliya ku qaadatay gaar ahaan laamaha amniga in la soo gabagabeeyo weeraradii lagu qaaday hotelkan Hilaac UK Maka Al Mukarrama iyo kuwa kale oo ka agdhow waxa la sheegay in ciidamada dawladdu ay la dagaalamayeen dagaalamayaal la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab oo ku jiray gudaha goob ay deganaayeen dad rayada oo ka mid ah dhismayaashan ku dhagan hotelka Hilaac UK ciidamada dawladda gaar ahaan laamaha amnigu ilaa iyo hadda ma aysan sheegin tira koobka rasmiga ah waxyeelada ka dhalatay qaraxan qasaaraha badan ee indhuhu qabanayaan dhaliyay sidaas oo kale waxa burburay goobo ganacsi oo ka agdhawaa halka qarax uu ka dhacay oo ay ka mid tahay hotelka Maka Al Mukarrama Hilaac UK goob dad rayada ay degan yihiin oo dadkii weerarka soo qaaday ay galeen sidaas oo kale waxa iyaguna burburay goobo kale oo ganacsiyo ka soo horjeeda halka weerarku uu ka dhacay hoteelada kale ee waxyeeladu gaartay waxa ka mid ah hotelka Kuwait Palace oo qaybteedan dambe hadda ah waxaana sidoo kale dhammaan qasaaraha halkan ka dhashay dawladdu ilaa iyo hadda aysan wax war ka soo saarin goobihii aan ku shaqaysanay baasaan isku bedelay mar qura gooray ahayd 2:12 daqiiqo oo fiidnimo ayaa anagoo iska shaqaysanayna qadartaani timid qadartana waa ku qanacsanahay oo ilaaha keenay marka waxaan sheeganaa waa dambi alxamdulillah rabbil caalamiin nafteena waa qabnaa waa nabad qabnaa haddana nasiib darro dhulkii aan ku shaqaysanay saas isku bedelay adigu ma ku jirtay markay wax dhacayeen aniga banaanka taagnaa markay wax dhacayeen dabcan waa aragnay baabuurka waana kala cararnay marka alxamdulillah rabbil caalamiin kullayba dadkii meesha ku jiray wax naga gadanayay iyo qaar shaqaaliina kamid ah intaba waa ku weynay jabana ninka la yiraahdo wuxuu diijiinu jabana mootadan waday oo aniga la dhashay da'diga yarada marka xalay 2 saac ee barkaa weynay mar alla saan u goobayo xalay 9 saac adiga koowaada waxaan ka helay isbitaal Madiino 8 qof atii qolka aan tagnay oo 2 dumar ay tahay marka sida aan goobayna waxaan aqoonsanay dharkiis iyo hal dhig iyo hal goon oo kaliya 8 qofna runtii wala isku mid ahayn aan dhig karaa gaadiidka gurmadka degdega ee Aamin Ambulance oo markii qaraxu dhacay halkan yimid mas'uuliyiintiisu waxa ay sheegeen inay qaadeen ku dhawaad 40 ruux oo dhaawacyo ah tirada waxa la aaminsan yahay in intaas ay ka badan tahay maadaama ambalaasada shaqeeyay ay ku jiraan kuwa bisha cas iyo kuwa kale gaar loo leeyahay hotelka sidaad aragto waxa ka muuqda burbur aad u xoogan oo uu sababay qaraxii halkan ka dhacay wadada ayaa go'day 24 saacadood kadibna dawladdu waxay ku guuleysatay in la soo gabagabeeyo qaraxan waxyeeladiisa iyo cidda geysatayba maxamed ibraahim macalimow oo ah xogayaha Nosage waxa uu ka mid ahaa dadkii joogay hotelkan Maka Al Mukarrama ee sidan u burburay markii qaraxu dhacayay waxa uu ka warramay indhihiisa waxa uu ku arkay jawiga sida uu ahaa iyo sidii wax isku bedeleen markii uu dhacay ka hor laba xabaday ayaan maqalnay xabadihiina waxa xigay qarax aad u weyn oo maaragtay dhulkii oo dhan u bedelay holac iyo maaragtay meel madow iyo uuro alxamdulillah hotelka intaan ka warqabo hal qof ayaa ku dhintay oo dadkii ka adeegay kamid ahaa laakiin inta dadka intiisa badan way ka badbaadeen waxaan kamid ahaa dadkii u soo baxay dhinaca qaraxu ka dhacay laamiga soo gudbay iyadoo maaragtay meesha gawaari iyo wax walba isla gubanayaan markaan banaanka imid oo laamiga ka soo gudbay ayaa maaragtay dadka qaraxa geystay hadda oo la joogo 4tii galabnimo maanta ilaa hadda xabadaha aad maqlaysaan meesha ku jira markii anagoo laamiga taagan ay gudbeen waliba waxa u maleynaa inay u dhaxayso ugu yaraan markay ugu yartahay qaraxa iyo dadka meesha markay galayeen 10 daqiiqo